Assalaamu calaykum. Sawirkan runtii waa sawirka aad iyo aadka social mediaha loola dhex wareegayo. Wuxuuna ka mid yahay macluumaadadii u dambeeyay ee musalsalka kulaalaha ka soo baxaya. Sawirkan wuxuu noo cadeynayaa su'aalihii maskaxdeena ka dhex guuxayay maalmihii u dambeysayna aan hadalhayntii ku wadnay ee kala ahaa IBK iyo Toolgama laga yaabaa inay saaxiibaan. Sidoo kale Sarbi iyo Yasmiyeyse kala dhexgali doonaan. Sawirkan ayaa runtii dhammaanba arrimahaas oo dhan noo faafinaya. Ugu horreyntii waxaa la sheegay sawirkan in uu yahay xalqadda soo socota ee 6aad. Saan sawirkanba uga jeedno waxaa lagu jiraa klaaskii ama fasalkii ayaa lagu jiraa. Haddaba yarkii Sarbi lagu magacaabayay wuxuu kala dhexgali doonaa Suuse iyo Cumar. Sarbina markaan wuxuu jeclaan doonaa Suuse ayuuna garabkeeda ahaan doonaa. Gabadha Yasmiinooda xalqadii u dambeysay Duruug dabagal ku haysayna waxaa la sheegay sidii markii horeba aan saadaalinay horeyna nologu sheegay in beerkii ay jeclaanayso ayna kala dhexgali doonto IBK iyo beerkii. Sidoo kale waxaa la sheegay Toolga iyo IBK in ay saaxiibi doonaan, laakiinse in saaxiibtinimadooda lama hubo inay sii waarayso. Haddaba Toolga halkuu ku dambeeyay dhaawaciisu sidee ayuu ahaa. Saan hore idinku sheegnay muuqaalkii u dambeeyay waxaan idinka ballan qaadnay in Toolga arrimihiisa oo dhan idin faahin doono muuqaalka xiga. Waa ka muuqaalkii xigay. Haddaba Toolga halkii ayuu ku dambeeyay, dhaawaciisu sidee ayuu noqday. Waxaa la sheegay in Toolga dhaawacun uu gorintii uusan soo gaadhin oo kaliya wejiga uu dhaawac ka soo yargaadhisan u jeednay muraayada dhabarka ayuu soo dhigay ahayd. Marka wejiga un bay dhibaateer ka soo gaadhay. Toolga waa caafimaad qabaa, saana kuma dhimanayo taxanaha. waa laadirkeeni inkastoo hadda uusan laadir ahayn uu IBK ku socdo. Haddana Toolga waa mid caafimaad qabaysa ula socda, loomana baahan doono dhakhtar. Xitaa haddii dhakhtar la geeyo isla markaaba waa uu ka soo bixi doonaa, isla markiina wuxuu iman doonaa iskuulka. Saan sawirkan uga jeedno marka asxaabteena saa ula socda Toolga wax dhibaato amaysan soo gaadhin. Haddaba wax yar hadii ku daro bonus miya la dhahaa. Haddaba maxay tahay sababta uu Toolga u lahaa aaba aniga walaashan lagama yaabo in aad wax nagu samaysid, iyo sidoo kale Toolga sababta u difaacay walaashiisa dambigana uu dusha soo ka saaray. Yarkan ama Toolga aabihiisa ma wuxuu garaacaa xitaa Leila? runtii waa su'aalaha aadka aad la soo weydiinayo. sababta Toolga hadalkiisa u dambeysay xalqadda waxay ahayd aaba aniga walaashay nama dilaysid ama waxba naguma samaynaysid markaan kadib, yacni dilin oo kale. runtii aad iyo aad la soo weydiiyey odaygan xitaa gabadha Leila muu garaacaa. haddii uu soo ogaan lahaa Leila inay lacagta qaaday ayadana muu dili lahaa. runtii aad iyo aad ayaa arrinkaas la isu weydiinayaa. kolley waxaan filaynaa odaygaas in uu Toolga kaliya ku egyahay oo gabadhan Leila uusan dhibaato saas u geysan. inkastoo Leila aysan joogin midasay qisada nooga sheekeeyeen oo Leila ay hadda timid oo yacni wadanka ay ka maqnayd, yacni magaalada ka maqnayd baan kooda wadanka ka maqnayn, magaalo kale ay joogta ayay ahayd. marka asxaabteena haddii marka la idinku celinayo Toolga wax dhibaato amaysan soo gaadhin. sawirkaana wuxuu cadeynayaa Toolga uu ku soo laabtay dhankaas iyo iskuulkii ku soo laabtay. waa tayahan idiin bilaabe Cumar iyo aabihiisa maxaa kala dhex yaala. sidoo kale Cumar markii uu ogaado ninkan Axmed Ilmaas lagu magacaabay in uu yahay aabihiisa, Cumar jawaabtiisu sidee ayay noqon doontaa. runtii waa midka aadka la soo weydiinayo. waxaana jirta mid kale oo ka xiiso badan, taasoo ah Cumar markii uu ogaado islaanta lagu magacaabay Seefgii in ay tahay wadaadii kala geysay Suuzaan iyo Axmed, iyo sidoo kale in ay tahay wadaadii masaajid hor dhigtay in Cumar la tuuran sabab u ahayd. Cumar muxuu samayn doonaa? wadaadan muu xanaaqi doonaa? cuqdad miyuu u qaadi doonaa? runtii yacni sidan dhibkeer horta looguma ogaanayo arrinkan waxaa loo badinayaa in ay fashilin doonto qoftii lagu magacaabayay Suuzaan. xalqadda soo socota waxaa loo badinayaa inkastoon la hubin Suuzaan iyo Seefgii in ay kulmi doonaan, halkaasna bambaa ka qarxi doonta. sababtoo ah Suuzaan wadaadaas aad ayay u necab tahay. miskiintan yaroo 40 bixino yacni Cumar iska wadata ayay Cumar intay ka xaday oo ka soo qaatay ayay banaanada ku tuurtay ee la socda. Suuzaan markii ogaatay Seefgii inay nooshahay way bal la yaabtayba. may nooshahay ee tiri sidii xalqadii u dambeysay waa Ismaaciil weydiisay ahayde. marka bal kulankooda labadaasna waa la sugayaa sida uu noqon doono iyo sida isku jijiitaan. Seefgii inkastoo tahay wadaad adag runtii, laakiinse Cumar ma ahan mid sidan sahalka ah ku cafinaya wadaadaasi. laga yaaba aabihiisa in uu aqbalo, uuna aqbalay inuu yahay aabihiisa, laakiinse Seefgii lama ahan inuu cafinayo. yacni Cumar saan u naqaano waa qof iska xanaaq badan oo iska yaqdhib badan, qof dhibaatooyinkaas dhan u geystay ilmaha inuu cafinayo. maybe inuu cafiyo ama laga yaabaa inuu cafiyo, laakiinse aan fikirkayga ilmahan inuu cafinayo. fadan daawada adna dhan commentiga nagula adoogo Cumar may kula tahay inuu Seefgii sidan dhibkeer ku cafinayo. ani labadood
axmed ilmaas ayuu soo dhaweysan lahayaan dhila sababtoo axmed ilmaas waa oday yaroo aan war wax ka haynin oo saan gooskooska uga jeednayba isla markii loo sheegay inuu yahay wiilkiisa isla markiiba waa ka wiilkiisii kale ku dhahay mawduucan gebi ahaanba naga soo afxeer cumar ma doonayo inaan iskuulkan ka buriyo iskana ilow sidoo kale waxaaba ugu yaab ka badan waxay ahayd axmed ilmaas suu u hordayay warkii wuxuu u geeyey xaaskiisa ayuuba warkii ku taabsaday marka xaaskiisa sheewaal ma laga yaabaa inay arrinkaasi faafiso ama ay dad kale la wadaagto runtii taas ilama ahan sababtoo ah waxaana loo sheegay macluumaadada ka mid ah wuxuu sheegayaa sheewaal inay cadaadin doonto Suuzaan iyo Cumar ayna ku dhihi doonto ninkay ka fogaada ama ha ka dhawaanina soo marka sidaas daraadeeda sheewaal ilama ah inay qof u sheegayso sidoo kale asxaabteena waxaa jira macluumaad kale oo aad iyo aad u xiiso badan kaasoo ah ninkii beerka lagu magacaabayayba gooskooska saan uga jeednayba waxay kala tageen qoftii lagu magacaabayay IBK marka beerkii wuxuu soo ogaan doonaa arrimaha Caakif wuxuuna isku diri doonaa Asiya iyo Duruug laakiin arrinkan waa arrin muhiim ah arrinkan waxa uu yahay beerkii wuxuu soo ogaan doonaa Caakif in uu dilay Asiya aabaheeda runtii arrinkan markii maanta macluumaadadaas la hadalhayay dhammaan dadku waxay isweydiiyeen taxanaha ma final buu taagan yahay waa maxay sirtaan season 1 loo sheegi waayay 2 loo sheegi waayay ee 3 loo sheegay maxay tahay hadda koor waata directoradu naga ballan qaaday in ay season 4 noo sheegi doonto sirtaan season 4 uu noqon doono seasonka u dambeeya taxanaha season 3 uu noqon doono seasonka ugu dheer taxanaha marka maxay tahay beerkii waxaanu soo ogaanayay dadku isweydiinayaan runtii arrinkan lama sheegi karo waqti uu dhacayo laakiinse beerka ayaa sabab u noqon doono kala taga Asiya iyo Duruug sidoo kale beerkii yani arrinkan hadaan idin sheeg qaabka ku soo ogaanaya waxay tahay beerka hadda kor wuxuu gacanta ku hayay telefonka abi telefonkaasna waxaa ku duubnaa fiidiyoogii dabcan Caakif markii uu dilay weli laakiin telefonkaas ani ma xasuustay waxa ka soo wareegtay ayaa filayaa 8 bilood meelaha 7 bilood wax saas ay ka soo wareegtay filayaa adiha saasan filayaa 7 bilood ba ka soo wareegtay marka fiidiyoogaasi 7 bilood ay ka soo wareegtay xilligaas ama xalqadii 7 bilood ka soo wareegtay waxaan ku aragnay xalqadaas yarkan beerka lagu magacaabo oo daawanaya fiidiyoogii Caakif uu dilay Asiya aabaheeda isla markaana mobilka uu ka damay isla markaana uu ka xumaaday meel ay iska dhigayaan filayaa yani faafahinta ka badan wallahi ma sheegi karo waan iloob waqti hore ay ahayd laakiin iska daawan ka daba tagaya mobilka salku ku dambeeyay inuu xumaaday iyo inuu meel dhigayo xalqada dib aan ugu laabanayaa oo muuqaalka ku xiga ayaan gabi ahaanba tafaasiil dhameystiran idinka siin doonaa waa tahay maxaad ka leedahay wada socodka Suuse iyo Saarbi iyo sidoo kale jacaylka ka dhaxayn doona Yaasmiin iyo beerkii iyo sidoo kale Leela iyo Cumar bal soo dhaweyntaadu sidee ay noqon doontaa daawade dhanka commentiga nagula wadaag runtii waa arrin aad iyo aad u xiiso badan sidoo kale waxaan rajaynaynaa mar kale in aan korukac kan aad u weyn aan ka sameeyno kaalin saddexaad ayaan ku jiraa inkastoo saaka markii taxanayaasha ay soo baxeen kaalinta labaad ayaan soo galay sababtoo taxanay kaalinta labaad ku jiray hoos u dhac ayaa ku yimaaday saa darteeda annaga ayaa ka kormaray kaalinta labaad ayaan ku jiraa marka toddobaad soo socda waxaan rajaynaynaa inaan kaalinta koowaad kusoo laabano dhanka daawashada musalada Turkiga waa saaxiibkiina Khalid oo habeen walba video soo dhigaya muuqaalka xiga waxaanu diyaar Muuse sidoo kale waxaan idinkaga tagay asxaabteena qiimaha badan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh